Soo dhawaada saaxiibayaal, haddii tahay markii kugu horreysay aad soo booqatay janaalkan, subscribe soo dheh kuna soo dhawaaw janaalkeena mahad kula soo. Filimkeena maanta wuxuu ku bilaabanayaa Curtis iyo qoyskiisa oo ku wada quraacanaya guriga. Curtis ayaa ka daahaya shaqada, islamarkiiba si dhaqso leh ku quraacanaya gabadhiisa oo dhagoola ayuu macsalaameynaya wuxuuna aadayaa shaqada. Waxaan aragnaa dhanka kale Curtis xaaskiisa Samaada oo guriga ku talaysa xarqaan. Waxa uu imaanaysa gabadhan oo ay deris yihiin, islamarkii waxay arkaysaa gabadheeda oo bannaanka ku tumaysa dhulka alwaax. Way ardaysaa oo way ka soo qabanaysaa. Dhanka kale waxaa aragnaa Curtis iyo saaxiibkiisa oo shaqada ayaga ku guda jiro ku imaanaya roob weyn. Dhanka kale Samaada iyo gabadheedii ayaa daaqada ka fiirsanaya roobka. Waxaa aragnaa markaan Curtis iyo saaxiibkiisa wax fadhiya gaariga kuna sheekaysanaya kana wada hadlaya shaqada maanta siday ahayd iyo roobka maanta da'ay. Islamarkii waxaa imaanaya Curtis saaxiibkiisa xaaskiisa waxayna dhehaysaa waa inaad soo xarootaa waa waqti dambe. Curtis ayaa meesha kasoo tegaya. Waxaan aragnaa subaxii xilli hore Curtis iyo gabadhiisa oo bannaanka taagan iyo duufaan weyn oo soo socota. Islamarkii eyga xaafadda ayaa kusoo fakanaya Curtis wuxuuna bilaabayaa inuu soo weeraro kana qaniino gacanta, laakiin islamarkii Curtis ayaa kasoo kacaya sariirtiisa hurdada waxayna ahayd Rio. Curtis oo fadhiya miiska quraacda wuxuu arkaya gabadhiisa oo ku ciyaaraysa eygii xalay soo weeraray oo ku arkay riyada wuuna kasoo qaadaya. Dhanka kale Curtis iyo saaxiibkiisa ayaa maanta soo wada gelaya. Waxaa aragnaa Curtis iyo saaxiibkiisa oo alaab kasoo qaadaya hoolka weyn ee alaabaha. Curtis iyo saaxiibkiisa waxaa ka istaagaya mashiinka ay ku shaqaynayeen. Islamarkii Curtis saaxiibkiisa wuxuu bilaabaya Curtis saaxiibkiisa ayaa wuxuu arkayaa cirka shimbiro badan oo koox koox iskula socda hal meel. Curtis saaxiibkiisa ayaa la yaabay shimbirada tirada badan ee halka meel kugu imaanaya hal mar. Islamarkii Curtis saaxiibkiisa oo la yaaban ayuu Curtis wuxuu hagaajinaya mashiinka shaqada wuxuuna leeyahay saaxiib waa hagaajiyay mashiinka. Dhanka kale waxaa aragnaa Curtis oo imaanaya iskuulka gabadhiisa dhagoosha ay dhigato isagoo wata kaba wasakhaysan oo kaga imaada shaqada. Waxaa la kabtamaya gabadhiisa iyo xaaskiisa. Dhanka kale Curtis ayaa wuxuu soo wadanaya gaari asaga iyo gabadhiisa. Roob xoog leh ayaa soo daaya islamarkiiba waxaa soo weeraraya waxa aan la garanaynin gabadhiisa ay daaqada kala baxayaan asagana qof xoog badan ayaa gal kaga imaanaya oo ku qabanaya daaqada. Islamarkii Curtis ayaa kasoo kacaya hurdada waxayna noqon Curtis oo yaaban ayaa jikada ugu soo gelaya xaaskiisa oo kafay samaynaysa. Waxay leedahay maxay tahay saan maxaa kugu dhacay. Dhanka kale waxayna tusayaa Curtis xaaskiisa oo suuqa ku iibinaysa dharkii ay soo tashay. Waxaa aragnaa Curtis oo samaynaya meel shabaq ah si ugu xiro eyga xaafadda oo soo wadaya eyga wuxuuna kusoo xirayaa shabaqii oo sameeyey. Curtis ayaa u tegaya god weyn oo ku yaala bannaanka guriga wuxuu isku dayaya inuu furo laakiin uu furmi weynaya. Furo ayuuna guriga usoo doonanaya. Furaha ayuuna kasoo qaadanaya guriga wuxuuna gudaha u gelaya godka weyn ee ku yaalay bannaanka guriga. Waxaan aragnaa Curtis oo soo gelaya godka weyn ee ku yaala bannaanka guriga. Curtis ayaa arkaya godka oo yaala hal kursi keliya. Dhanka kale waxaa aragnaa Curtis iyo xaaskiisa oo habeenkii isla daawanaya TV-ga waxaa laga soo deynayaa dhacdo aad u xanuun badan. TV-ga habeenkaas waxaa laga soo deynayaa qoys u leeday dhacdo aad u xanuun badan. Isla habeenkaas Curtis ayaa gabadhiisa ugu tegaya daaqada ayadoo daawanaysa waxba Zombi oo kale ayadoo daaqada ka daawanayso. Gabadhiisa la soo fakado soo qaato daaqada guriga ayaa iftiin kasoo galaya. Hal mar alaabta guriga taalay ayaa kor u kacaysa. Curtis oo yaaban ayaa hal mar alaabta guriga dhulka kusoo dhacaysa naqaska ayaana kusoo laabanaya. Dhanka kale waxaa aragnaa Curtis oo isla sidii hore oo kale riyo kasoo kacay lugihiisa hoostooda ayuu qoyaan ka dareemayaa islamarkiina wuxuu arkayaa inuu isku kaadiyay xalay riyada oo riyoodo darteeda. Islamarkii waxaa qolka usoo galaya xaaskiisa wuxuuna leeyahay iska istaag meeshaada waa inaad iga laabataa. Waxaa aragnaa Curtis uu ku fakaraya gudaha musqusha. Curtis ayaa imaanaya maktabad weyn wuxuuna soo iibsanaya 2 buug oo ku saabsan psychology-ga. Isagoo soo socda waddadaas iyo gabadhiisa waxay arkayaan suuq weyn oo lagu iibiyo cuntooyinka sinjilka wuxuuna bilaabayaa inuu soo aruursado cuntooyin sinjil ah oo badan. Curtis ayaa guriga waxaa kusoo dhaweynaya xaaskiisa waxaana wada jooga xaaskiisa iyo qoyskeeda. Curtis ayaa wuxuu bilaabayaa inuu alaabaha ugu baahnaa guriga oo ka baxsado oona geysto godka weynaa ee ku diyaarsanaa bannaanka guriga. Wuxuuna bilaabayaa Curtis inuu ku dhex akhriyo buugaagta godka. Waxaa aragnaa dhanka kale Curtis oo maalinkii la kulmaya Doctor-ka weyn ee magaalada ayaa Curtis wuxuu u sheegayaa inuu qabo psychology maskaxiyan ah oona siin doono daawooyin oo ku caafimaadayo muddo gaaban. Waxaa aragnaa dhanka kale Curtis xaaskiisa oo joogta goobta shaqada. Waxaa la guddoonsiinayaa warqad ay ku qoran tahay lacagii ay shaqaysanaysay bilahan oo dhan. Waxay u mahadcelinaysaa maamulada shaqada. Dhanka kale waxaa aragnaa Curtis oo tegaya farmasiga daawooyinka si uu usoo qaato daawadii uu soo qoray doctor-ka wuxuuna dhiibayaa lacagta daawada. Curtis ayaa imaanaya guriga waxayna ku dhehaysaa xaaskiisa waxaa noo hayaa barnaamij fudud laakiin Curtis uu ka diidayaa. Isla habeenkaasna wuxuu qaadanayaa daawadii oo soo qaatay wuuna seexanayaa habeenkaas. Curtis ayaa subaxii soo kacaya isagoo xalay riyoonin hurdo fiicanna hurday. Waxaan aragnaa dhanka kale Curtis iyo saaxiibkiisa oo ku guda jiro shaqo maalmeedkooda. Curtis ayaa wuxuu dareemayaa xumad aad u daran wuxuuna usoo cararayaa dhanka sanduuqa qashinka wuxuuna kuma tagayaa sanduuqa qashinka si daran. Dhanka kale waxaa aragnaa Curtis oo gaariga ku wada xawaaro sare asagoo dareemaya xanuun aad u sarreeya. Gaariga ayaa fariin goosanaya wuuna istaajinayaa. Waxaa aragnaa Curtis iyo saaxiibkiisa oo ku dul quraacanaya gaariga shaqada. Wuxuu la kulmayaa Curtis doctorad uu soo diray doctor-ka weyn waxay leedahay aniga waxaan ahay doctoradaada cusub waa inay la soo socodsiisaa mar walba aad dareento wax ku dhibayo. Habeenkii Curtis ayaa wuxuu soo aadayaa meesha looga baxo magaalada
si uu u daawado roobka dhacaya hilaaciisa. Dhanka kale waxaa aragnaa Curtis iyo saaxiibkiisa ayaa subaxaas waxaa loo keenay cagaf-cagaf cusub, wuxuuna bilaabayaa Curtis inuu ku qodo godkii bannaanka guriga ku yaalay si uu u weyneeyo godka. Curtis oo godka qodaya waxaa imaanaya xaaskiisa iyo gabadhiisa. Gudaha guriga waxaa aragnaa Curtis xaaskiisa oo ku dhehaysa arrintan waa isbedeshay, waxaan la soo baxa dabeecad aan lagugu aqoonin, ma naqaano waxa soo wadid. Curtis ayaa qaadanaya daawadiisa hal mar dhammaan habeenkiina wuu seexanayaa. Saddex habeenkii waxaa soo kacaysa Curtis xaaskiisa waxayna wacaysaa digtoorka ayadoo ku arkaysa calaamado aan caadi ahayn. Digtoorka ayaa si dhaqsi ah imaanaya xaafadda waxaana u tegay Curtis oo ku dhahaya waa fiicanahay. Curtis ayaa xaaskiisa ugu sheekeynaya siday wax u jiraan habeenkaas. Dhanka kale waxaa aragnaa Curtis gabadhiisa yareed oo lagu sameynayo subaxaas baaritaan buuxa. Digtoorada isbitaalka ayaa Curtis iyo xaaskiisa waxay u sheegaysaa inaysan wax dhibi jirin ayna usoo laabtaan muddo 6 bilood gudahooda. Curtis ayaa ku laabanaya xaruntiisa shaqada. Curtis ayaa bilaabaya inuu tago xafiiska shaqada oona ku dhaho waxaan rabaa inaan ka tago shaqada, waa in la siiyaa mushaarka shaqaysanaya bilahan oo dhan. Dhanka kale waxaa aragnaa Curtis oo sanduuq weyn gelinaya godkii ku yaala bannaanka guriga. Haddana waxaa inala tusayaa Curtis oo imaanaya dukaan lagu iibiyo koofiyadaha oksijiinka gudbiya, wuxuuna soo iibsanaya 3 xabo. Curtis oo bannaanka ku dhisaya sanduuqa weyn waxa uu imaanaya saaxiibkiisa oo yihiin deris, wuxuuna leeyahay maalmahan dabeecadan lagu aqoonay la imaatay maxaa kugu dhacay. Waxaa aragnaa dhanka kale Curtis oo riyoonaya habeenkii kuna riyoonaya xaaskiisa oo taagan jikada agteedana taalo mindi. Subaxii waxaa aragnaa Curtis oo aad u yaaban oona fadhiyo miiska quraacda. Xaaskiisa ayaa waxay u keenaysaa quraac waxayna isku dayaysaa inay gacantiisa taabato laakiin wuxuu leeyahay iga fog. Isla markii xaaskiisa waxay arkaysaa maamulaha shaqada oo taagan bannaanka, waxay leedahay Curtis oo lagu imaaday. Si dhaqsi leh ayuu ugu tegayaa maamulaha wuxuuna leeyahay maamulaha codsigaadii waa la fuliyey, waxaana akoonkaada ku soo shubnay lacagihii aad shaqaystay bishaan oo dhan. Waxay u imaanaya xaaskiisa uu sheegaya laakiin isla markii waxay ku dhufanaysaa dharbaaxsho wayna ka wadanaysaa gabadheeda. Curtis ayaa ku soo laabanaya goobta shaqada wuxuuna leeyahay dib u heli karaa shaqadeyda. Dhanka kale waxaa aragnaa Curtis xaaskiisa oo gabadha deriska usoo doonanayso dharkii ay u toshay. Curtis ayaa habeenkii soo gelaya godka wuxuuna keensanayaa alaab badan. Dhanka kale waxaa aragnaa Curtis iyo xaaskiisa oo bannaanka ku sheekaysanaya wuxuuna ka dhaadhicinayaa inay soo socoto musiibo aad iyo aad u weyn. Wuxuuna bilaabayaa Curtis inuu qoyskiisa u wado bannaanka casho. Ninkan ujeediin ayaa waxaa loo soo diray inuu Curtis waxyeeleeyo. Wuu kor imaanayaa asagoo u fadhiya cashada laakiin wuxuu bilaabayaa inuu kala tuuro u fiiro laakiin Curtis ayaa si fudud uga takhalusaya wuxuuna ku qaylinayaa ninkii isku daya inuu xaggayga anigii qoyskayga usoo dhaqaaqa ogaado inaan dilayo kuna ka siinayo. Curtis oo bannaanka guriga ku samaysanaya gaarigiisa wuxuu arkaya gabadhiisa oo taagan laamiga wuuna ku ordaya wuuna kasoo qaadaya laakiin isla markii waxaa soo weeraraya shimbiro. Shimbirihii ayaa waxay bilaabayaan inay dhulka kusoo daataan hal iyo labo. Curtis ayaa kasoo cararaya oo kusoo cararaya gudaha guriga. Habeenkii xilli dambe xaaskiisa ayaa kasoo kacaysa hurdada waxayna daari weynaysaa nalka sida ugu dhaqsiyaha badan. Curtis ay ka kicinaysaa hurdada asaga gabadhiisa iyo xaaskiisana waxay u cararayaan gudaha godka weyn. Curtis ayaa xaaskiisa gabadhiisa u xiraya maaska. Wixii gudaha godka waxaa aragnaa Samada oo kasoo kicinaysa hurdada Curtis. Curtis ayaa bilaabaya inuu bannaanka godka u baxo. Wuxuu arkayaa jawigu inuu sidiisa hore yahay waxba iska bedelin. Deriskiisa oo bannaanka iska xaaqanaya. Samada iyo gabadheeda ayaa toos ugu soo baxaya bannaanka. Curtis iyo qoyskiisa oo la yaaban sidee wax u jiraan ayaa waxay u tegayaan digtoorka ugu weyn magaalada waxayna leeyihiin maalmaha waxaa aragnaa arrimo maskaxeed oo aad iyo aad u daran. Wuxuu ula talinayaa inay tagaan xeebta ayna soo qaataan waqti. Samada iyo Curtis iyo xaaskiisa gabadhiisa oo waqti ku qaadanaya xeebta ayaa gabadhiisa yar waxay arkaysaa duufaan aad u weyn waxayna u sheegaysaa aabaheeda. Samada ayaa bannaanka ugu soo baxaysa guriga weyn ee ku yaala xeebta. Isla markii bannaanka imato roob ayaa kusoo daaya laakiin roobku ma aha biyo sidii shidaalkii oo kale ayuu usoo difqayaa. Waxaa aragnaa dhammaadka filimka Curtis xaaskiisa gabadhiisa oo bannaanka guriga xeebta taagan oo la yaaban duufaanta weyn ee soo socota.